qofka doqonka ah wuxuu leeyahay astaamo aanu qarsan karinin oo welibana lagu garto. waxaan kuu sheegi doonaa 6 calaamadood oo lagu garto qofka doqonka shakhsiyadiisuna daciifka tahay amba liidato. haddaba 6dan astaamood aan kuu sheegi doono waa kuwa ugu horeeya ee lagu garto qofka doqonka. sidoo kale waxa ka yaabin doonta ta ugu dambaysa. ka hor intaanan kuu sheegin nagu sharaf inaad muuqaalkan xaqiisa siiso adigoo like saaraya. waa anigoo ah Nadra Saciid. laga yaabaa inaanad mar kale arag, haddaba nagu soo biir imaka naguma khasaari doontide. haddii aad hore la joogtayna sharaf ayaad leedahay. qofka shakhsiyadiisu liidato daciifkana tahay ee lagu tilmaamo inuu nacas yahay wuxuu leeyahay laguna gartaa tilmaamahan soo socda. number 1 sir la'aanta iyo ka sheekaynta naftiisa. doqonku waa qof saa'id uga sheekeeya naftiisa iyo waxa gudihiisa ku jira. sir ma laha, waxna ma qarsan karo, awoodna uma laha inuu naftiisa xakameeyo. dadkana wuxuu ku raali geliyaa ka sheekaynta naftiisa oo hadal kaleba ma yaqaano. 2 degdeg u hadal iyo go'aan qaadasho aan laga qofka doqonka ah inta badan isagoon waxbaba ka fiirsanin ayuu hadalka degdeg u yidhaahdaa. wuxuu sameeyaa ficilo iyo go'aamo uu ku degdego isaga oon ka fikirin cawaaqibta ka dhalan karta hadhow. 3 caajisnimo iyo dadaal la'aan. doqonku ma jecla inuu dadaal u galo horumarinta naftiisa amba inuu wax cusub barto, wuxuuna ku qanacsan yahay inuu ku nagaado heer hoose iyo bartuu joogo imaka. 4 calaacal iyo eedayn badan. doqonku waa qof markasta ka calaacala arrimaha haysta, wuxuuna eedeeyaa naftiisa amba dadka kale. dhibaatooyinkiisa u khaaska ahna wuu ka calaacalaa markasta. ma jecla inuu isbedel sameeyo amba uu xal keeno, umana dul qaadan karo dhibaato yar. haddaba dabeecadaasi waxay ku sababi kartaa dadka kale agtooda inuuna qiimo ka yeelanin, wuxuuna noqdaa qofkaasi mid markasta la bahdilo. 5 doqonku wuxuu ku qancaa aragti kasta oo loola yimaado. haddii aad maqli jirtay dameeridhaan raacday oo kale weeyaan. isagu go'aan ma laha, keliya dadka ayuu iska daba socdaa oo cidina ma tirsato. doqonku ma yaqaano sida loo diido waxaan dantiisa ku jirin oo maya ma odhan karo. dantiisa wuxuu ka hormariyaa markasta ta dadka kale. 6 awood la'aanta fahamka. doqonku xaaladaha adag inta badan wuu ku dhibaatoodaa oo hore uma fahmo. fikrado amba arrimo adagna ma geli karo. inta badan wuxuu ku dhiiradaa isagoo xoogga saaraya howlaha yaryar ee fudud oo welibana bilaa faa'iidada ah. daawade 6da calaamadood een soo sheegay qaar ka mid ah haddii aad leedahay doqon ma tihid, balse arrimahaas ayaa doqonnimo ah ee iska daa sida ugu dhaqsaha badan. sidoo kale daawade adiguna nala wadaag 3 astaamood oo kale oo lagu garto qofka doqonka. dhanka commentiga ku soo qor. nagu sharaf inaad muuqaalkan like saarto adigoo xaqiisa siinaya. haddii aad nala soo gaadhay ilaa iyo dhammaadka fiidiyogan waad ku mahadsan tahay. waa anigoo ah Nadra Saciid. waa inooyo mar kale iyo fiidiyowga kan ku xiga.